Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan asxaabta ku xiran channelka Ilayska Bulshada. Sidaad hore ugu soo aragtay ciwaanka muuqaalka oo ah aabba dilay canugtiisa. Qiso xanuun badan oo ka dhacday magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Faanoole. Waxa ay ahayd qiso saameyn fara badan ku yeelatay dadka ku nool deegaanka Faanoole. Nin iyo naag isqabay ayaa iskhilaafay. Khilaaf kadib ninkii ayaa wuxuu go'aansaday inuu nafta dhaafiyo canugtiisa. Waxa uu sameeyay gurigiisa ayuu god ka qoday, gabadhii ayuu karfanay kadib iyadoo nool oo qaylinaysa ayuu ku aasay godka. Ninkanu inta badan waxa uu isticmaali jiray maandooriyaal. Booliska ku nool deegaanka Faanoole ayaa baaritaan badan ku sameeyay ninkani, ugu dambeyn waa ay soo ogaadeen, gacanta ayayna ku soo dhigeen. Sidoo kale waxa uu soo saaray gabadhii oo meyd ah. Booliska ayaa xabsiga geeyay. Dilka uu dilay gabadhiisa ayaa ahayd mid uu ku xumeynayay xaaskiisa. Ugu dambeyntii gabadhiisu waa ay dhimatay, isaguna xabsi ayuu ahaaday. Muuqaalkeenu maanta waxa uu ka eegyahay intaas. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.